بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ولبدي سقط نحى وحان أسوجدنا وحي تاي أباره لبي طبعا كي بركة عاوة سقط نحى أيها دبوحو ككعي بنجا نحى سوماليا قاديدك gurmadka degdega gobolka Banaadir ee shaqaalahooda iyo maamulkoodu waxay si dhaqso ah uga gaarsiiyeen dabka waxayna ku guuleysteen daminta dabkaas runtii khasaare weyn man keenin oo waa la badbaadiyay hantidii ummadda Soomaaliyeed ay lahayd ee meesha ku jirtay sidaa darteed meesha ayaan tagnay anigu aan tagay agaasimaha iyo ku-xigeenkiisuba ay tagaan shaqaalaha gurmadka degdega iyo gaadiidka gurmadka degdeguba waqti ku habboon ay meesha gaareen waajibaadkii ay u soo jeedeen har iyo habeen ay ka guteen halkaas si gaar ah ayaan ugu mahad celinayaa marka ummaddu ay seexato in gaadiidkeen iyo shaqaalaheenu soo jeedo waa mas'uuliyad dhab ah oo ah tii ayaga loo xil saaray inayan mas'uuliyadoodii gabin oo sidii la rabay ay uga soo dhalaaleen kalsooni fiican ayayna siinaysaa aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa garabkooda ayaana taagannahay wixii baahidooda ahna waxaan ballan qaadaynaa intii karaankeenna inaan xaqabtirno haddii alla eedno bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir waxaan ugu baaqaynaa inay guryaha ay ku nool yihiin u samaystaan haamaha oksijiinka waxay qayb ka yihiin badbaadada guryaha iyo hantida iyo bulshadaba badbaadadooda ay qayb ka yihiin sidoo kale dhismooyinka in loo sameeyo meel exit ah oo marka dab uu kaco lagu baxsado tilmaamihiina lagu qoro oo mataqaanaa qofka uu fahmi karo haddii lacala dab uu kaco meeshuu ku baxsan lahaa arrintaasina waa laga maarmaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ayaan gaarsiinaynaa baaqaas gaar ahaan dadweynaha ku nool gobolka Banaadir gaar ahaan xarumaha dawladda iyo hoteelada meelaha dadka ay ku badan yihiin iyo guud ahaan dhismooyinka magaalada ku yaal haamaha oksijiinka waa lagama maarmaan aad iyo aad ayay muhiim ugu yihiin badbaadada guryaha agabka yaala guryaha iyo dadka sida darteed yaa la dhayalsan arrintaas yaa la fududaysanin waa arrin khatarteeda leh waxay suuro gelin kartaa inaan khasaaro degdeg u dhicin inta gaadiidka gurmadka degdega iyo shaqaaluhu ay ka gaarayaan goobta intaasna bulshada Soomaaliyeed ayaan dhihi lahaa